subax wanaagsan Iiraan oo samaysanaysa hubka waxgumaada ee nukliyeerka xaalka wada hadalka Mareykanka Iiraan oo meeshii ugu xumayd gaaray iyo waliba Mareykanka oo isaguna ka tashanaya tallaabo militari inuu qaado sidoo kale gaashaanbuur culus oo bariga dhexe laga sameynayo Israel iyo Hindiya oo horboodaya iyo Pakistan oo si adag ula hadashay reer Hindiya wararkii ugu waaweynaa muxuu yahay gantaalka halista badan ee Mareykanku ka baqayo maraakiibtiisa Iiraan ay ku qusiso soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan waa subaxnimo Khamiisa 26 bisha 2 sanadka 2026 wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas Iiraan ayaa si rasmi u sheegtay wadahadallada wareegii saddexaad ee u dhaxeeyay Iiraan iyo Mareykanka si rasmi ah uga furmeen Geneva safaaradda Oman ee Geneva ayaa la sheegay wadahadalladu inay ka furmeen isla markaana Iiraan waxay sheegtay in wadahadalladu ay ku furmeen wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Oman iyadoo sidoo kale saacadaha soo aadan ay xigi doonaan wadahadallo dhexmaraya Mareykanka iyo waliba Iiraaniyiinta kuwaas oo ay u kala dabqaadayso dowladda waddankaasi Oman warka yaab kale waxa uu ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Mareykanka JD Vance kaasoo isagu sheegay Washington inay ka wareeshay isla markaana ay helayso cadeymo muujinaya in Iiraan ay isku dayayso inay hormariso barnaamijkeeda hubka waxgumaada ee nukliyeerka waxaana ugu baaqay in Tehran in hanjabaadaha Mareykanka ay si dhaba u qaadato ninkan ayaa waraysi u siinayay shabakadda Fox News waxa uu ku adkaystay inay haystaan cadeymo muujinaya Iiraan inay samaysanayso oo ay hormarinayso barnaamijkeeda nukliyeerka waxa uu carabka ku adkeeyay ujeedada madaxweyne Trump inay tahay in laga hortago Iiraan inay hesho hubka waxgumaada ee nukliyeerka diblomaasiyadda waa ikhtiyaarka koowaad ayuu yiri laakiin Trump waxa uu haystaa qaab kale haddii loo baahdo tallaabadaasi ayuu yiri waxa uu sidoo kale tilmaamay inuu rajeynayo maamulka Iiraan in xal militari aan ahayn ay ku qancaan balse madaxweynuhu xaq u leeyahay tallaabo inuu qaado ayuu yiri haddii loo baahdo laakiin haddii Mareykanka gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenka si toos ah ugu eedeynayo dowladda Iiraan inay hormarinayso barnaamijkeeda waxgumaada ee nukliyeerka Iiraaniyiintu ma aysan aamusin isla markaana qumbulad kale ay iyaguna soo tuurayaan dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan Abbas Araghchi ayaa sheegay weli inay jirto fursad lagu gaari karo xal cadaalad oo isu dheelitiran Iiraan ma doonayso kaliya xal laakiin waxay doonaysaa xal cadaalad oo wax kasta oo iyadoo ay sameynayso ay helayso beddelkeeda muqaabil ah in laga qaado cunaqabataynta iyo muran kale waxa uu sheegay Iiraan waxay beeninaysaa ujeedooyinkeeda inay yihiin nuclear military laakiin wuxuu sheegay inay ku adkaysanayso xuquuqdeeda isticmaalka tamarta nuclearka waliba si nabada iyadoo tixraacaysa heshiiska caalamiga ee ka hortagga faafidda hubka waxgumaada ee nuclearka waxa uu sheegay in diyaar ay u tahay labada doorasho dagaal iyo nabad wajiga aad noola timaadaan ayaan diyaar u nahay inaan idinku qaabilna ayuu leeyahay Iiraan ay leedahay haddii aad noola timaado dagaal diyaar baan kuu nahay oo anagu ma nihin dad jiijiifa haddii aad noola timaadid nabadna waan kula qaadanaynaa oo marada cad ayaan sare kula taageynaa afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan kaasoo lagu magacaabo Ismaaciil Baqaayi ayaa ku tilmaamay eedeymaha Washington kuwa been abuur oo weyn isla markaana ay yihiin kuwa marin habaabina inta aysan bilaaban wadahadallada Araghchi wuxuu Geneva kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda Oman Badr al-Busaydi ayuu yiri halkaasi oo lagu soo bandhigay qodobo ku saabsan heshiiska suurtagalka iyo waliba in laga qaado Iiraan cunaqabataynta iyo heshiis laga gaaro arrimaha nukliyeerka warbixino kale ayaa la tilmaamaya Wall Street Journal inay qortay samarkaan ay sheegtay barnaamijka hubka waxgumaada ee nukliyeerka Iiraan weli ma muujin horumar muuqda tani waa duqeymihii ugu dambeeyay Mareykanka ay yiraahdeen sawirro ayna soo bandhigeen Wall Street Journal tan iyo bishii June wax isbedel ma jiro ay leedahay tiradaasi reer Mareykan mana jirto cadeymo muujinaysa in kobcinta uraniumta dib u bilaabatay gaar ahaan xarunta Fordo iyo waliba xarunta kale ee Natanz ee nukliyeerka ee arrimaha facility-ga noocyadaasi ka shaqeysa dhaqdhaqaaq xadidan ayaa la arkay aliira goobta Asfahan ee xaruntii nukliyeerka ahayd laakiin wax ka baxsan intaasi ma jirto ay ku waramaysaa Wall Street Journal Mareykanka weli wuxuu sii wadaa siyaasadiisa cadaadiska gaar ahaan marka la eego in cadaadiska ugu sarreeya ama heerkiisii ugu sarreeya la gaarsiiyo wasiirka maaliyadda ayaa la tilmaamaya in cunaqabatayn uu ku soo rogay Iiraan taas oo ujeedadeedu ahayd in cadaadiska dhaqaale lagu sii kordhiyo xukuumadda Tehran Iiraaniyiintu maxaa looga baqayaa Iiraan waxay heshay diyaarado iyo waliba xitaa hub kale oo casri ah sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan laakiin arrimaha halista waxay tahay gantaalada balastiga
gaar ahaan gantaalada aadka looga baqayo waxaa la tilmaamay inuu ka mid yahay gantaalka loo yaqaano Fatax 1 iyo Fatax 2 waa laba gantaal oo aad iyo aad qarashkooda u jaban yahay isla markaana cirka iyo hawada bariga dhexe ay ku burburin karaan oo ay ku qabsan karaan waxaa la tilmaamayaa in dhanka hubka ay haystaan Fatax Glass ee loogu talagalay in lagu burburiyo maraakiibta sidoo kale Gadir oo isaguna gantaal kale oo aan ka sahlanayn oo maraakiibta quusin kara sheekadu aan sahlanayn waxay tahay dagaal isku dheelitiran sidoo kale minooyinka badda lagu aaso iyo doome xawaare dheereeyo leh gebi ahaanbana waxaa xirmi doona marinka Hormuz oo muraha gaarka ee looga baqayo Iran waxay ku adkaysanaysaa in ay leedahay awood adkaysi oo waqtiga ugu dheer ay ku dagaalami karaan Rubio oo isaguna Mareykanka dhankiisa u hadlay wuxuu yiri Iran waxay diidan tahay inay ka hadasho barnaamijkeeda sawaariiqda isaguna Mareykanka arintan u cuskanaya in gantaaladan ay halis ku yihiin Israel sidaas daraadeed iyagu raalli aysan ka ahayn waxaana uu yiri sawaariiqdeeda halis iyo mushkilad bay anagu nagu tahay sidoo kale waxa uu tilmaamay Iran haddii aysan joojinin waxa ay wado welina kama zuulin ayuu yiri rabitaankeeda tayeynta barnaamijkeeda uraniumta taasi waa midaan ogolaanin ayuu yiri iyaga laakiin weli way ku dhagan yihiin ayuu yiri Iraaniyiinta haddaba sheekadu ma sahlana waana faano le fara kama qodna dowladda wadankaasi Iran ayaa sidoo kale ku hanjabaysa in tallaab military ay qaadi doonto haddii Mareykanka uu isagu daandaansigiisa sii wado geesta kale bariga dhexe waxaa ka bilaabanaya xulafo cusub dowladda India ayaa horboodaysa dowladaha xulafada noqonaya Israel iyo India ayaa dhisaya gaashaanbuur culus waxaana ku lamaansan qaar ka mid ah wadamada Carabta iyo waliba kuwa Afrikaana ra'iisul wasaaraha Israa'iiliyiinta Benjamin Netanyahu waxa uu dhaliyay hadalayn ballaaran kadib markii uu sheegay Israel inay ka shaqeynayso dhisidda isbahaysi lix geesooda oo gaashaanbuur oo bariga dhexe u yeelanayo haddaba waxa lagu soo warramaya India Greega Qobrus iyo waliba Israel inay noqon doonaan wadamada ugu horeeya waxa jiri doona wadan Carabeed oo la sii ogaanayo laakiin la tilmaamayo maalmaha soo aad banaanka inuu iman doono iyo wadan kale oo Afrikaana sidoo kale wadamo kale ayaa suuragal oo Azerbaijan oo kale inay soo raacaan ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi oo isagu booqasho ku jooga Tel Aviv ayaa waxa uu tilmaamay tan inay muujinayso qariirad cusub iyo isbahaysi dhanka gobolka ujeedaduna tahay sidii loo horumarin lahaa isbahaysigan Modi dhankiisa wuxuu yimid si uu la kulmo Netanyahu isagoo ajanda gaar ah kala hadli doona oo ku saabsan qariirada isbahaysigan tani waa booqashadii labaad ee Modi uu ku tago Israel tan iyo markii xukunka uu qabtay booqashadii ugu horeysay waxay ahayd 2017 geesta kale Pakistan ayaa isha ku haysa isbahaysigan cusub isla markaana dagaal kula jirta India fariin ayaana u dhacday India ayaa leeyahay waxay yiraahdeen dadka reer India waa inaysan wiligood babar dhigin diyaaradaha dagaalka ee jiilka saddexaad ee Tejas loo yaqaano ay ku hubaysan yihiin ciidamada dalkaasi India waxaana yiraahdeen annagu waxaan haysanaa oo Pakistan ay ku hubaysan tahay JF-17 oo ah diyaarad aan caadi ahayn oo soo riday 4 ilaa tiro ka badan oo la tilmaamayo oo ahaa diyaaradihii Faransiisku uu sameeyay ku hubaysnaayeen Indiyaanku meel kasta oo aad joogtaan daawade waxaan ka codsanayaa in subscribe aad saartid gambalaalka aad furatid muuqaalkan aad sii share garaysid daawade waanu kaaga mahad celinaynaa muuqaalka inaad sii share garaysid nagu garab istaagtid like mahadsanid daawade